سنين هو خالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. الله غفور الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلتي وناسان داوديال meel kastoo aad nagala socotaan kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena diinta iyo nolosha oo idinka imanaya stuudiyaha telefishinka qaranka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. daawadayaasha barnaamijka ku taxan dal iyo dibadba waan soo dhaweynaya insha Allah. halkan waxa uu diyaaray sheekh barnaamijka fadiilatu Sheekh Maxamed Sheekh Umar Dirir xafidahu Allah wa ra'ah. Allah dhowro oo xafide waxa uu inaga faa'iido doona cilmigiisa xilligana waxa uu fadhiya halkan sidoo daawadayaasha barnaamijkan ee telefishinka qaranka uga qanciyo masaa'ilka diiniga ah una siiyo fatwa ama jawaab diineed oo ay ku laran tahay adilada dhinaca sharciga ee loo cuskanayay. daawada kasta oo khadka telefoonka u suurto gashay inuu u suurtoodo inuu la soo hadlo waxaan ka codsanayaa inuu ku bilaabo magaciisa oo dhameystiran halka uu nagala soo hadlayo iyo su'aasha oo kooban insha Allah ta'ala isla markaana uu ka dheeraado shaashada telefishinka ee uu naga daawanayo. daawadaha ugu horeeya ee barnaamijka inoo bilaabaya aan la hadlo. halo assalaamu calaykum walaalo soo dhowow. assalaamu calaykum walaalo magaca ku bilow insha Allah si fiican baan ku maqlaya. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد برعو وايه تقدر هيا أشهد أن لا إله إلا الله لإله هذه النون الله أخرى لا أشهد أن النون الله أخرى هذه لك تبى أشهد أن لا إله كيف يسحق طيب الله أشهد أن لا إله يا أشهد أن لا إله بالسكوت قميه دي لك واي كلام حوي إن والله نهاي أو يربى قبل لا تيجي هيا قبل ما تقول لا تيجي وحالي على قدر يوم مسؤول له هيا تلاعبوا شركتي ولا خير في الواي إنك يا رب تقعد أوربعي لا هيا markii gabadhaada gurigoodii laga heerkoodii la weydiistay aad diyaargareysay baarbaarnay gabadhii ninkii waa loo meheriyay deetana iyadoo tidkeedii gaadhna sidee bilowdanaha joogtay yirma dhashayana haye markaas meherkaa maalintii hore la mariyay meherka xama yahay sidee loo meherinayaa marka dambe meherkii baa loo tegaya gabadha dhalay oo marka laga qaadanayaa dee qofkii marka wakiilatay mise walaadin baa loo geynaya. aad baa u mahadsan tahay. daawadaha waxaan ku socon doonaa insha Allah. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. والله عليكم السلام سو دhow. شهر انا سؤال ويدي وايه شيخكم مقليا ان magaca ku bilow. اسلم حبيبي. haye waxaan joogaa Burco. haye marka odayga uu xiriiriyay la sadexeena u tagay oo tadawti soo gafran saddex dalqado. يا والله حاجي uu xiriiriyay ها saddex dalqado iga furan saddex u tagay. haddaad saddex saddex dariskaaga u tagay. waa iga furan tahay. haye saddex markay soo ogeyn baan laba jeer u tagay. haye kadib markaa sheekhu muxuu leeyahay laba jeer u tagayna furnayn deynaan furniin iyo furniin la'aan aad baa u mahadsan tahay. daawadaha xigaan ku socda. halo السلام عليكم. halo والله ما مقلصة. halo halo السلام عليكم. واتاي daawadaha soo ka socdona insha Allah. daawadaha xigaan ku u gudbo. marxaba والله ما مقلصة. هلو السلام عليكم. والله هاي صديقي فضلا
أيوة هذا أقول كلام يا بدي شيء واحد بدي كلام يا waan kaa qaadnay magaca ku bilow ما قاعد عمر محمد عاتق عليه haye halkay joogto cumarow عمر محمد عاتق عليه halkaad ku sugan tahay ما عنده مرة haye لكن هو حوجينا ها ممكن بضاعة سكرية ممكن بضاعة سكرية mhm ما أنا أقول لك أن لو قفنا نفسي كان وحنا قليل ونفسي يمكن الآن نفسي هذا aad baa mahadsan tahay walaal هذا وجودنا عاوزين aad baa mahadsan tahay daawada xiga hallo assalaamu calaykum hallo sheekh maxamed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما لبدا سؤالات هرية محمد وحيث كيفية النطق بالشهادتين سيد الله قلنا واقعية توحيدك marka luqa alcarabiya lagu odhanayo marka iyomaa saxa buu uhi ashhadu an laa ilaaha iyo ashhadu an laa ilaaha waxaa saxa in nuunka la idqaamo oo laamka lagu idqaamo ama lagu qariyo oo laamka oo shid leh oo adagun lagu dhawaaqo ashhadu an laa ilaaha in la yidhaahdaabaa saxa oo aan nuunka la muujinin cilmiga tajwiidka marka la eegana waa meelihii nuunka la qarin jiray weeye sidoo kale markuu qofku ku dhawaaqayo waa inuu ha-da muujiyaa ashhadu ashhadu oo dadka qaarkood baa carabku wuxuu kaga dhacaa ashaddu isagoo laga yaabo inuu eedaamayo ayaa wuxuu leeyahy ashaddu an laa ilaaha marka ashhadu an laa ilaaha sidaasaa sax aadna way u habboon tahay towxiidka qur-aanka faatixada ataxiyaadka waxyaabaha waajibaadka o dhan qofku inuu yidhaahdo culimada iyo dadka aqoonta u leh qirada iga dhegaysta inuu yidhaahdo oo carabkiisa u saxa waa laga maarmaan su-aasha labaad ee inankayagiibaa wuxuu mehersaday gabadh uu sina ku uureeyey maxaa ka jira meherkaa meherka culimmadu way isku khilaafsayiin oo qaar yidhaahda uu ansaxayaana way jiraan qaar yidhaahda gabadhan uurka lihi weli may cadad bixinoo uur bay leedahayna way jiraan waa siday u badan yihiin oo ilaahay baa yidhi wa ulaatulaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna fii suurati dalaaq dumarka uurka lihi waa inay cadad baxaan ay dhalaan markaasaa la guursan karaa aayaddaasaa daliilo ah markaa ilaa ay dhasho ma mehersamaysa bay culimmadu u badan yihin saa daraaddeed waa in dib loogu celiyo meherka ah oo waaligeedii iyo laga mehersadaa waalidkeedii waladkanina mar haddii uu meherka ka horreeyey biyihiisiiba ninkan ha ahaadeene waladuu dhalay maaha oo isaga ku abtirsanaya hooyadiibuu raacaya labadaa masale jawaabtoodu waa caynka ah asma maxamed waxay sheegtay ninkeedu inuu wax u diiday wixii uu u diidayna ay yeeshay marka hore waa qalad baynu leenahay oo haddii ninkaagu dalqadaada wax ku xidhay ma ahayn inaad calaatanto xuquuqda muslimiintu ay isku leeyihin waxaa ka mid a qofka walaalkaa markuu kugu dhaarto in wixii uu kugu dhaariyey laga daayo oo haddii dee dhib ka imanayo inaanad markaa dhaartii ku fashilinin dawgu waa taasuu ahaayoo xuquuqda isku leeyihin wey in loogu samafalaabay ahayd adiguna adaabay ku khusaynaysay dhaartani maxaad ka dheefaysaa in dalqadaadu dhacdo sidaa daraaddeed meeshii uu ku yidhi ha tegin haddii aad tagtay arrintii qoyska waxbaa u dhinmay xalkuna waxa weeye tafaasiil iyo hadal baa ku jire iyo in labadiinaba wax laydin weydiiye culimada aqoonta shareecada ula idinku dhow baa u tegaysaan ama maxkamadda degmada halkaasi arrinkiina lagu hagaajinaya lagu saxayaa su-aasha cumar ee ah dadkan tahriibaya badda isku guraya xukunkoodu waa maxay falkaa ay samaynayaan waa xaaraan
inuu qofku naftiisa ku tuuro meel uu ku khatar gelayo waa xaraam. ilaahay baa wuxu uhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima. naftiina ha dilina buu ilaahay rabbi wuu idin naxariisanaya. aayad kalena ilaahay wuxu uhi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka. gacmihiina halaaga ku tuurina oo macnaheedu yahay isdilina. nebiguna wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalam xadiidkii sugnaa qofku wixii uu isku dilay adduunyadunba aakhiro lagu cadaabaya. saa darteed isagoo qofkani cadow ka cararaya inuu cadowga iska celiyo mooy inuu bad iyo dab isku tuuro sax maaha. cadowga ha dilo. sidaa daraaddeed arrin fashala weeye. waa arrin khatar badan. waa arrin qofkii adduunyadii uu doonayeyna wuu seegay aakhirana khatartaasaa haysata. ilaahay wuu ka dhaafi karaa laakiin sida qur-aanka iyo xadiidku ay sheegeen qofkaa waxaa loo tixgelinaya inuu yahay qof naftiisa dilay. markaa dadku waa inay aada iyo aad da-yarta uga waantoobaanoo dunyadan iyagoo dunyo doonaya ay naftooda dilayaan ha iska daayeenoo ilaahay ha u toobad keeneen. wuxuu ilaahay u qorayna ha iimaansadeen. wallahu aclam. aad iyo aad baad umahadsantay sheekh maxamed. sheekh cumar derir daawadayaashii barnaamijka la soo hadlayey ayaan ku noqon doonaa insha allah. halo assalaamu calaykum. walaala soo dhawow magaca ku bilow insha allah. aya khadra codkana kor u qaad. sheekh maxamed weydiinaysaa. walaal waxaan doonaya inaan weydiiyo 3 su'aalood sheekh insha allah. haye ta koowaad waxay noqonaysaa sheekhu wuxuu ka hadlay in badan dadkan dhalinyarada ah waxaanay u yaqaanaan harxadka. haye markaa culimaduna waa kan isku waafaqsan inuu yahay baatil. haye banaanayn gabadhu inay bilaawil ku guurto. haye haddaba haddii ay dhacdo oo ay saasi dhacdo markan labaada la rabo inay saxaan. yaa walaalo markan labaada la rabo inay saxaan in la saxa la rabo ma waxaa loo baahan yahay in sheekh dambe iyo markhaatiyo dambe loo yeedho mise aabihii unbaa la odhanaya inantii loo hibeeyo oo gadaashiisu bay ku saxaya. waay su-aasha labaad. haye su-aasha labadan doonaya waxa weeye waxaa jirta walaal xadiis sheegaya gabadha haddii ay ninkeeda ku tiraahdo ifur bilaa sabab inaanay jannada urinaynin. haye haddaba waxaan rabaa cagsigiisa yacni ninku hadduu bilaa sabab ku furo rakaadiis maxay noqonaysaa? hadduu isna bilaa sabab un furo. ها بلا صلاة هذا كفره. وايه سؤال صدحات. سؤال صدحات دونينا ويديا واحد تحي. إنك مثلا واحد شراء لبقط أصحابه بس لما تكمل الله كساوي فرنا يا يقول صلاة حبل لما يهلايو. فرينتا وكل شيء اللي أمانة من غنسة. ملك ويدينا هذا ضيع ضد إسكا ضيع. غاد بوما سنتين. هلو. السلام عليكم. سلام. والله على سعودة وو. عليكم السلام. وبرنامج كي دينتي نلاشى 6 صور وجرته ما قعدت بلاب إن شاء الله. ولا المقعي واسمع حمزة. هيه اسمعي سلقسين هيه دي. هيه ولا الوحن ويديني يا شيخة. ها. واد سلقسين سوي اسمعك اسكن ناقص تلفزيون كشاشة. ولا لا وحن دون يا هو يدي. هو يدي بعد ما تم قرنته. اسمع سفي عن ورا الان فهمنا اسكن ناقص شاشة فضلا. واي بعد قلت لي بدن هذنا ولي واد اسماء دقيسنسا وان اسكن ناقص وانا كان ناقصه انا اقول لا ولا لا لا هي ولا له هويدي بعد متي هي شيخه waxaan weydiinaya ka waran hooyadii haday dhimatay ma u ducayn karaa amba quraanka ma u akhri karaa way aad ma santahay aad ma santahay daawada waxay ku socon insha Allah halo وعليكم السلام السلام يا مقعي عبدي واحد أبقى صالح برعو هاي شيخ واحد ويقول لك كيف بدنا نجمع على شرايين تبغانا نجمع في المباركة هاي أصح مصعي تبدأ أنا وقت الصبي شرايين تبغانا وأقلعه سوى هذا العادي يوم ولا مريض واي داوضة حيا كسعودة خدك تليفونك حاجة الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله صلوا يا دولة يا شيخ أول السلام يا ورا حياك الله
ayo walaal aad iyo aad iyo laba su'aalood weydiiyo magacana ka horreysay walaal insha allah yaalkaad nagala soo hadlayso walaal waxaan ahaa Khadar Cabdullaahi Mare haye walaal su'aasha koowaad waxaan weydiinayaa walaal in salaada marka lagu jiro in adiga salaada inta la galay dabeetana adigu aad markaa jamci iyadoo la rukuucsan yahay aad soo gaadho miyaad markaad allahu akbar tiraad mar labaadana allahu akbar tiraa haddii markaa u horeyso ma allahu akbar odhanaysaa mise laba jeer baad allahu akbar odhanaysaa aad baa umahadsan tahay sheekh maxamed bismi illaah su-aalaha hore khadradta hore waxay ahayd guurkii marka hore masaafada ku dhacay sidee loo saxaya labadii qof haddii ay iskaxaysteen oo qaladkaa galeen markii dambe sidee u saxayaan waxay u saxayaan guur dhammaystiran oo arkaantiisii iyo shuruuddiila baa lala imanaya cidda meherinaysa wadaadkee goobjoogga u ah arrintaa ayaa kollay saxaya ay dadkuma wada yaqaanaan arkaantiisa guurka shan tahayna waxa weeye ninkii wax guursanaya waa inuu joogo gabadhiina waa inay joogto weligiina waa inuu joogo markhaatiyaashii caadilka ahaa erayadii lagu dhawaaqaya ee sharciga waafaqsanaa altaswiij waalinkaax waltamliik erayadaas oo kale marka shantaa rukni waa in dadkaasi isu soo hor fadhiistaan ninkii wax guursanayay ninkii uu guurin lahaa gabadhii oo dee iyadana la meherinayo ogol labadii markhaati erayadii lagu dhawaaqayay ee caqadka la odhanaya aliijaabu waalqabuul siday sheegtay sax ma aha guurna kuma guntamayo in odaygii intuu u tago ninkii wax guursaday ee doonaya inuu saxo inuu yidhaahdo inantii isii markaa hadduu yidhaahdo waan ku siiyey dee maya caqadkii sax maaha shuruudii arkaantii iyo shuruudiina ma leh sidaa hore aynu sheegnaa loo saxaya kolleybana si aan u qalloocanin mar labaad waa in qof culimo ah oo aqoon ula diinta uu joogaa goobta taas sidaas weeye nacasnimela lama dugsado annagoo dad waaweyna annagoo maaragtay caruuriba dhalatay maxaanu ka wadwadaynaa lama yidhaahda qalbigaa la doonaya liyadma-ina alqalbu inuu qalbigii xasilaabaa la doonaya waxaynu ogsoonnahay nabiga calayhi salaatu wasalaam siduu xadiidka saxiixa ee bukhaari ku sugan tilmaamayo waktigiisii waxaa dhacday nin asxaabiya ayaa gabadh aroostay labadoodii aroos ah ayuunbay islaan soconaysaa timidoo waxay tidhi labadiinaba anaa idin jaqsiiyey macnaheedu waxa weeye walaalaadtiina kala yaaca ninkii wuxuu ihi dee anigu maan maqal inaad ijaqsiisay inantiina reerkoodiibuu weydiiye waxay idhahaan maanaan maqal inay jaqsiisay haddana qalbigiisii wuu ku degi waayey oo nebigu u tegay calayhi salaatu wasalaam intuu socdaalay buu madiine ugu tegay markaa rasuulku wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalam kayfa waqad qiila wo sideed ula raaxaysanaad ula noolaan doontaa iyadoo wax la sheegayba markaa wax qalbigu kugu degaya raac weeye sidaa daraaddeed buu iska furay gabadhii oo nin kalaa guursaday furiinku inuu bilaa sabab noqdaa sax maaha oo furiinka bilaa sababtee laguu sheegayaa waxa weeye qofkan oo gabadhan wax mushkiladii aanay jirinba ama iskuba wanaagsan inuu reerkiisa ku ciyaaruu furo taasi ma fiicna ninka xaggiisa ma fiicna gabadhana way kasii daran tahayba markaa sidaa iyada loogu diidayba isagana loogu diiday waayo islaamku wuxuu dhiirinaya in laisguursado qoysku inuu dhisnaadana waa dhiiriyey markaa codsiga gabadha ay codsato dalaaqa iyo inuu reerkii sabab la-aan dumiyo ninku midna ma fiicno sax maaha su-aasha ah tabliiqu salaam in qof uu kusoo faro qof kale uu ku idhaahdo salaan iga gaadhsii waa ammaano sidaa daraaddeed ammaanadaa iyada ah waa inaad gaadhsiiso qofkii lagu faray laba siyoodda waad u gaadhsiin kartaa kaa fariinta soo fara inaad ku gaabiso jawaabta salaanta iyo inaad ku darto kan kusoo gaadhsiiya salaanta labadaba hebel baa ku soo salaamay yaqra-u calayka asalaam uu kusoo salaamay markuu ku idhaahdo inaad tidhaahdo adiga iyo isagaba salaami dushiina ha ahaato iyo inaad tidhaahdo hebelkaa isoo salaamay salaami dushiisa ha ahaato
ومركز حديث رسولك اكت صلى الله عليه وسلم ستاسوها ملك الجبريل بو نبي السلام كسو قاديا عايشو سو غارسينيا iyaduna saasay ku jawaabaysaa Caaisha calayhi salaam ilaahay salaam dushiisa ha yeelo tara ma la narabay leedahay nabi allah waxaad arkaysaa malaa'iga aan anagu arkaynin marka nabiga marka malaa'igtu ay soo faraan salaamta sidaas uu gaarsiinayay asxaabtiisa su'aasha asmaa waalidka iyo waxa loo qabanaya markuu dhintay kadib samafalka aynu u samafalayno waalidkeena intuu geeriyooday kadib waxa kamid ah wixii sharcigu inoo ogolaya ama uu inoo ina faray inaynu u fulino waxa kamid ah sadaqadii la bixinayay ee ajrigeeda loo niyoonayay waxa kamid ah ducadii loo ducaynayay aw waladu saalixun yadcuu lahu siduu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qur-aanka kariimka ah isaga in loo akhriyayo daliil ma laha bay leeyihin culimadu inkastoo qayb ka mid a culimada ay qabaan inuu gaadhayo haddii loo akhriyo oo aan adduunna laga qaadanin su-aasha cabdi magaca cabdi horta waan yasixi lahaayo inuu ama cabdilaahi ama cabduraxmaan ama cabdulxakiim magaca cabdi keligii lama daayo ee kolley waalidkeenu markuu dee magaca inoo bixinaya magac dhammaystiran buu bixiyey cabdi waa in wax la raaciya taa waan sixi lahaa soomaalida aad buu ugu badanyay magaca cabdi oo quri cabdi waa addoon cid kale in lagu lamaaneeyana maha cabdi khadar oo kale la yidhaha laakiin waa asmaada ilaahay in lagu lamaaneeyo taa waan sixi lahaa marka laga dhaqankii nabiga calayhi salaatu wasalaam jumca mubaaraka muu odhan jirin jumcada fadaa'il kale wuu sheegay laakiin ereygaasi kama soo aroorin wax si aan ku diido oo daliilahoo soo aroorayna ma garanayo ma hayo su-aasha khadar ee ah qofku marka uu imaamkii oo rukuucsan u yimaado ee uu salaadii xidho ma laba jeer buu allahu akbar odhanaya mise mar keliya odhanaya ma laba jeer buu odhanaya midi waa tii xidhashada oo waa inay sarajoog ku dhacdaa maxaluha alqiyaam allahu akbar markuu qofkii leeyahy waa in allahu akbartaasi sarajooga ku dhacdaa isagoo taagan haddii isagoo soo foorarsanaya ay dhacdo may guntamin salaadaas waayo meesheediibaa arkaanu islaamkiiba waxay ka mid ahay arkaanu salaa bay ka mid ahayd allahu akbartaas marka allahu akbarta horead ku xidhanaysaa sarajooga waa inay ku dhacdaa markay taasi dhacdo tii kale soo foorarsigaada odhanaysa allahu akbar ilaa intaad rukuucda gaadhayso marka labadaa allahu akbaroodoo ta horena faral ay tahay arkaantii ka midtay ta dambena ay sunno tahay labadaasuu odhanaya qofku wallahu aclam aad baa umahadsanta sheekh maxamed haddii ay dhacdo sidii inantaasoo kale daawadaha hore ay sheegtay tanoo kale hadday dhacdo oo hal salaam hal allah takbiirad isagoo sii foorara dadka hadday jir deg deg baa ay ku soo galaan waxay isleeyihiin imaamka iyaanu horkicin rukuucdii isagoo ka kicin ku gaadh dadna isagoo sii foran buu allahu akbar ka gaadhsiinayaa hadday saa u dhacdo sheekh maxamed salaadaasi maxay noqonaysaa salaadaasi waxa weeyaan arkaanu islaamkii mid ka mida buu meesheedii dhaafiyey oo waa faatixada isagoo rukuucdii ku akhriyo kale arkaanu salaadka arkaan waa tiirarkii salaada waxaa ka mid ahaa faatixada allahu akbartaas niyada faatixada intuba inay sarajoog ku dhacaan baa shardi ahay marka haddii faatixadii uu ku akhriyo rukuucda ka war ama faatixadii uu ku akhriyo ataxiyaadka wax lala yaabo wey islaam baa waxay aragtay odaygeediioo show maalintaa aada usoo fikirayoo markaasuu ataxiyaadkii ayuu sarajooga ku akhriyay ataxiyaatu almubaaraka isagoo akhriyay ayay dhegaysatay islaan xariifada bay hayda waxay tidhi talow maxaa lala fadhiisan doonaa intii lala fadhiisan jiray waa tanoo la isla taagiya maxaa lala fadhiisan doonaabay tii macnaa way la yaabsantay marka sidaa loola yaabaya haddii ataxiyaadkii lagu akhriyo sarajooga ayuunbay allahu akbartiina haddii siifoorar iyo rukuuc lagu dhawaaqo ayuunbay la mid taho fuqahadu waxay leeyihin salaadaasi may guntamin ilaahay wuu ka aqbali karaa laakiin sidaa marka la eego nidaamka u yaala salaada arkaantiibuu la seegay mid ka mida meeshiisii oo may ansixin bay leeyihin wallahu aclam aad baa umahadsanta sheekh maxamed khadkii telefoonka ku noqdo halo assalaamu calaykum walaala soo dhawo magaca ku bilow insha allah walaalo su-aal baan doonaya inaan ku weydiiyo waa hagaag walaal shiikan waxaan doonaya inaan su-aal weydiiyo waa yahay walaal waxaa dhacday meher baa igu xidhan nin baa meher isugu kaaya xidhan ka ogeen waa yahay
ninkaasi ninaan wada deynta nin yar wada hadalnay buu yidhi lambarka aabbaha ii sheeg deetana ninaan si fiican wada sheekaysanay maaha ninaan imika raboo doonayana maaha sabab diintu maxay odhanaysaa warqadiina waan ka rabaa markii meherka maad doonahayn maad ogolaansho maanu jirin maya kolle markii meherka aniga cidi lama soo hadlin meherku iska waa waa tahay halo asalaamu calaykum sheekh maxamed khadka telefoon ku socon doonaa inaad fahanto su-aasha marnaya asalaamu calaykum waa ku maqlaya walaalo walaalo aniga ila hadal fadlan adigoo shaashada telefishinka iska naaqusaya intaad ila hadlayso waa tahay waa ka soconaya daawadahaasi daawadaha xeeran socon doona insha allah halo asalaamu calaykum halo haddii qofku daawadaha isku dayo inuu codka shaashada uu dhegeysto iyadoo in fara badan ka hadalay si fiican laysu maqli maayo marka insha allah sidaan isu maqalno waa iska naaqusi doontaan ha walaal asalaamu calaykum calaykum assalaam soo dhowo walaalkay walaal magacaygu waa cumar waxaan kala soo hadlayaa galbeedka sheekha waxaan weydiin lahaa kaad igala soo hadlaysaa walaalkay boorama gobolka hawdal sheekha waxaan weydiin lahaa su-aal haye su-aashaasi waxa weeyaan imiga nidaamkan la yidhaahdo isku asturka haye wiil iyo gabadhaan marka hore isku banaanayn haddii tusaale ahaan ay gabadhii xaamilo noqoto sheekha waxaan weydiin lahaa markan waalidiintu yidhaahdaan isku astura guurkaasi ma guur sax ahba mise wuxuu u baahan yahay in gadaal laga saxo halkaa yar cadda walaalkay marka dadka isasiinta dambe la sasiinayo miya mayntan hawshanaa timiday kadibna waxaa la yidhi labadan qof ha la isku meheriyo gabadhiina waa xaamilo waa tahay bilowgii barnaamijka ma dhegeysanayso ma daawanin waa tahay waxaan jecel inaad barnaamijka ka faaidaysato insha allah aad baa umadsanta waa kugu celina bal insha allah lakin waad wixii dambe ad ka faidaysan hadii alla udalo gala waa su-aashii imkaan kasoo jawaabnay uun sheekh maxamed kasoo jawaabnay lakin insha allah bal si gaaraad inanka boorama inaga la soo hadlay aad ugu celin doonto haddii alla udalo ogolaado halo asalaamu calaykum halo uu ku dhacay walaalka soo dhow waan ku maqlaya walaal soo dhow haye magacna ka horreysi maxamed axmed jaamac halkee nagala soo hadlaya hargeysa haye hore ma ula soo heshay maxamedow barnaamijka waad la socota waad dhegeysan jirtay waad daawan jirtay laakin kuma suurto gelin sidaad markii hadalkaaga odhahdii ugu horreysan ka fahmi inaad aada u xiiseyn sida la soo hesho kusoo galay caawa waa fursad ka faaidayso sheekha maxaad weydiin waxaan weydiinaya sheekha guurka markan la isla baxsado maaragtay markaa aanu waalidku ogeyn markaa waxaan weydiinaya sheekh guurkaasi iyo sharcigiisa oo meherxadku soo maaha oo meherxadku soo maaha ya intaan dee mise waa lala tegay qofkii mise waa la tegista la isla tago aad baa umahadsan tahay daawada xigana waan ku socon doona insha allah halo asalaamu calaykum assalaamu calaykum وعليكم السلام walaala soo dhawow si fiican baan ku maqlaya soo dhawaay haye magaca magacaygu waa maxamuud maxamuudow sheekha su-aalta weydiinaya waayahay sheekhan su-aal baad weydiin doonta haddii alla ka udhe maxamuudow waxaan weydiinaya shaashadda inaga naaqus laakiin masaajid door ku tukanaa mawlaca waayahay wuxuu ku horeeyaa masaajidada wuxuu ku horeeya laabad haye kuwa kalena waa ka dambeeyaan badhiga adigoo 40 mirir meelaha haye kaas su-aasha sheekh waa weydiinaya xilligii salaadoon gaadhin miyuu tukadaa markaa iyo walaalo xilligii salaadoon la gaadhin wuxuu ka dambeeyaa 40 mirir waa tahay sheekha inoo faahfaahin halkaa aad baa umahadsan tahay asalaamu calaykum halo walaala soo dhawow
هذه وخلاص هذه مقالة جيت هاي خضر سولو الواحد كويدينيا هلو صفي عمك ومقري ولا waxaan ku weydiinaya wala laba salaad sheekh weydiinaya haye waxa weeye salaada marka la tukado salaada sharqi salaada ay magara safarka marka la tukado culimada qaar baa yiri maxay ducaa magara salaada ka dambaysa ma jirto haye oo mid ay sheegtay kale ahaan iyo jamaacaan doona haye salaada kale waxa weeye salaada jamaacad markuu sheekhu minbarka taagan yahay ee uu ducaynayo aamin laba hor karo wala musnaaniya inta sheekhu sugma ducaynayo aamin laba hor karo haye هذا سؤال بس وديني أدبو ما سنتي ده واضح يوم كسر عندنا إن شاء الله هلا السلام عليكم واكم مغلي ولا شيء السلام عليكم وعليكم السلام ولا سألت بوجيليا وياه مقع كوريسي ولا عذر سياد عذر سياد وياه عذر سياد ولا العطايا في رجل طيب ها ayaa miyiga lagu qabtaa waxa lagu sameeyaa wax la yiraahdo faak maxaa lagu sameeyaa duca lagu qabtaa sanadkiiba qoy haye markaa dadka weydii ma loo qaban karaa mise kala loo bixin karaa aad baa maasantahay sheekh maxamed bismillah su'aalaha saddex ka midihii oo inanka cumar iyo maxamed oo midna hargeysa nagala soo hadlay midna boorame iyo inantii kasii horeysay saddexdaba masaafaday ka hadlayaan marka haddii shayna su-aaluhu u bataan wuxuu ka turjumayaa mushkilad ijtimaaciya inay tahay ama mushkilad xagga bulshada dhibaato bulshada ah inay tahay bay ka turjumaysa ama wax dadka haysto oo xal u baahan sidaa daraaddeed marar badanna waynu ka hadalnay iminkana waynu ku celinaynaaye guurku waa shay horta lagu yididiisho oo qof waliba uu ku yididiilanayo rag iyo dumarba dhammaanteenna waa halkaynu ka soo baxnay oo bani aadamku ka farcamay sidaa daraaddeed dariiqo xalaala inuu ku socdo oo deganaanshihii iyo sacaadadii nolosha leh aada bay muhiim u tahay waa waajib wax lagu dheeldheelana ama lagu ciyaarana wuu ka wen yahay sidaa daraaddeed waxaynu leenahay waktigii hore ee geela la isku xidhi jiray waa lasoo dhaafay hadda haddii la helo inanta nin wanaagsan oo xil qaado cidina xoola kuma xidho sida badan dadka qaarkood waa laga yaabaa in damcgaleen qofka waayeelka ah ee inantiisa cid wanaagsan u hela wuu siiyaa sida badan marka waxaan leenahay da-yarta ha baqina suuqa madowna iska daaya wax la tahriibiya ama la tukhaantukhiyana dee ooridaad guursanaysaabaa ugu foolxun hadhowna shaki iyo diiqad iyo warwar baa ku dilaya iyo wax ma kuu mehersayn mise kuuma mehersaa miyaynu sheegnaa mise waynu ka aamusnaa calool adeegna waa ilaahay uu helkii bay yidhahdaan soomaalidu iyo geesi ilaahay ma xelo marka haddii aad dhallinyaradii tahay oo aada soo badheedho oo aad tidhaahda nin inantaasaan kaa doonaya ii guuri uu ku siinaya inantiina waalidkii waa inay u sheegtahay tidhaahda ninkaasaan ku aaminayaa mustaqbalkayga waa in la ii guuriyaa oo lala eegaa haddii ay labaxsadkaasi waxa uu dhalayaa oo natiijada ka dhalatay ay tahy bal inantaa hore eeg waxay tidhi nin baanu in yar wada hadallayoo markiiba meher buu igu xidhayoo markiiba uu iga gaadhsiiyo markiiba uu baxsaday saddexdaa markiiba abaa isku xiga marka caatifadeedii buu kiciyey wuxuu isaga dhigay nin libaaxa wax walba dhammaynaya waa kan ka gaadhgaadhsiiye ka libdhayba mustaqbalkeedii mee ilmuu ku reebay waanu ka rooray meeluu marayba lama arag mustaqbalkeediina uu ku ciyaaray marka sharcigu uu leeyahay weliga iyo mas-uulka ha loola tago oo inantii hala qiimeeyo taasoo kalea laga cararaya waa guri la-aan iyo oday la-aan iyo ubadkiioo ka waxaysba marka horta dhiirigelintaa iyo hordhacaa waynu samayn xagga xukumka sharcigaana guurma ansaxo haddii aan weligu joogin nebi maxamed baa wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahiday cadl guur ma guntabayo ma ansaxayo iyadoo weliga inanta uu guuriyo laba markhaatiyo caadilina goobjoog ay yihiin mooyaane
taa masaafada intaasaynu ku dhaafi lahayn ciddii sidaa wax isku mehersatayna horeynuu soo sheegna waa ku celinaynaaye waa inay dib isu mehersadaan meherkaa hore ma jiro. su-aasha maxamuude ah masaajid aanu ku tukanaabaa masaajidada ka horeeya. haddii uu masaajidkaasi salaada gelayo oo waktiga salaada la xidhanaya ay tahay waktigii oo aan gelin salaadaasi may guntamin. shuruudaha salaadee shanta ah mid ka midii wuxuu ahaa dukhuululwaqti inuu waktigii galo. soomaalidu way ka mahmaheenoo waxay idhaahdeen salaad walba waktigeedaa la tukadaa iyo wakti baa la sugaayo wadaad laba sugo. muhiimadda waktiguu leey garanaya ila ilaahay baa wuxu uhi subxaana wa tacaala ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta. salaaddu waxay noqotay waajib wakti leh, waajib ilaahay mu'miniinta saaray oo wakti leh. marka salaada haddii uu ka hor dhaco ninkaa idin tukinayaa may ansixin. sidaa daraaddeed baa in la dib dhaco ayaa ka roon in la qadimo oo waktigii laga horeeyo. xukumka sharciga waa caynka ah. shuruudihii salaada ee lagu geli lahaa salaada ama miftaaxa u ahaa mid ka midaan jirinba. baraarujintaynu halkaasii raacin lahayn waxa weeye fawda fi ladaan uma baahnin. fawdadu inay meel walba gasho, diinta ay gasho, adaanka ay gasho, salaada ay gasho uma baahnin. waxaa loo baahan yahay salaadu waxay sheegaysaa ummad nidaamsan bay sheegaysaa oo imaam keliya ku urursan oo wakti keliya wada tukanaya oo wakti keliya wada salaamo naqsanaya. marka xigmadaha salaada loo jideeyaba waxaa ka mid ahaa in ummaddu ay urursanaato oo ilaahay xaggiisa wada jeesato. marka ha laga daayo oo dadka da-yarta ee masaajidada u badan ee mid waliba goortuu doonayo uu adaamayo ha laga daayo. wadanku dadka ku nooli waa dad sunnaa ama ahlu sunnaa. shiicada wakti kale adaamo oo ahlu sunnaa iyagoo la ficiltamaya wakti gooniya adaama maya, taasi ma jirto. marka adaankana aan hagaajino oo nidaamka hala ilaaliyo iyo cibaadada waktigeeda. ducada bacda salaada nebigu muu ducaynin calayhi salaatu wasalaam ducadan caamka ah ee dadku wada sugayo. laakiin waxaa iska macruufa hunaaka adkaarun bacda salaa. dikri fara badan oo mashruuca ayaa jiro salaada dabadeeda. aayad kursida iyo qulwallaha iyo labada qulacuudu iyo astakfirullah 3 jeer lagu celiyay. dikrigaasaa la akhriyaya. khadiibku marka uu khudbadda akhriyo uu ducaynaya aamiin waa la odhan karaa, laakiin aamiin jamaaciyahoo isu wada baxda may jiri jirine. laakiin shaksi waliba aamiinta gaarkiisuu odhanaya. su-aasha cadar ayna soo weydiisay ahayd axanka iyo islaamku wuxuu ka qabo. axanku waxa weeye sadaqo dadku ay sameeyaan 12 biloodba hal mar. waxaa loo sameeyaa waalidkii baa la xusayaa baa laydhaha ama axan baa la samaynayaa. sadaqadu waa sax, waalidka waa laga samayn karaa xaggiisa, ajrigana ilaahay baa loo niyoonayaa. daliilo ku soo aroorayna waa jiraan siiba markay carruurtu bixinayaan. laakiin taa waktiga leh bidcay noqonaysa oo waktigan hadduu fida yahayna 3 habeen lagu koobayo, hadduu axan yahayna sanadkii mar lala eeganayo. tawqiidkaas wakhtiyeyntaasaa bidco ka dhigaysa bay leeyihin culimada muslimiinta. sidaa daraaddeed waktigii la doonaa la bixin karaa oo aan lagu koobaynin wakti mucayana. wallahu aclam. waa tahay daawadayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeeni diintii nolosha oo telefishinka qaranka somalilan idinka imanaya. halkana uu su-aalaha diiniga iga jawaabaya sheekh maxamed sheekh cumar dariir xafidahu llahu waracaa. iyada oo aad soo weydiinsaan su-aalaha dhinaca diinta ee doonaysan in laydinka siiyo jawaab ama fatwa. waxaan ku noqon doonaa khadka telefoonka dhegeystayaasha daawadayaasha barnaamijka la soo hadlaya. halo halo assalaamu calaykum. وعليكم السلام. walaala soo dhawow. walaal misaal baan rabay inaan shaqo weydiiyo. haye magacaad ka horeysin insha allah yalkaad nagala soo hadlaso. sacdiye xisi. haye saad yalkaad ku sugan tahay. boosaaso. boosaaso puntland. haa. soo dhawow walaalo. waxaan rabay inaan shaqo weydiiyo walaal dhakar allah ku siiyo. salaatuleylka imise ayaa la tukadaa xilligeesa ku habboon tahay in la tukado. aad baa umahadsantay sacdiye. su-aal kale maadna weydiinaysaa. may walaal intaas waa. aad baa umahadsantay aad baa umahadsantay walaal. daawadaha xigaan ku socdo. halo halo السلام عليكم. assalaamu calaykum. السلام عليكم. halo
walaal may maqlaysaa السلام عليكم waa tahay daawadahaas inaan ismaqlin bay u ag tahay daawadaha xigan insha allah u gudbiyo insha allah halo marxaba السلام عليكم walaalo codka kori igu yara qaadi insha allah saan si fiican kugu maqlo وانا السلام ولا يا شيخ xayaaka allah markaa sheekha su-aasha weydiinaya waxa weeyaan markan salaada laga baxo ha oo kuma shaqeeyada qaar duceeyo shaqeeyada qaarnaan duceynin haye markaa su-aashaas aan weydiinaya magaceeduna waa maxamed walaal aad baa umadsanta walaal haddaan ka jawaabanayba waxaan ku socon doonaa khadka telefoonka xiga asalaamu calaykum calaykum salaam walaalkay soo dhawow waa dhow waay walaal shaashada ayaad iga daawanaysana iska naaqus haddii allaha u dilo ogolaaday waay waa tahay anaad ila hadlay walaalo waa tahay inaan maqlin ma laga yaaba daawadaasi marka daawadaha xigan insha allah u gudbiyo insha allah halo halo assalaamu calaykum halo ها walaalo walaalo wax su'aal ma adiga sheekh oo marka hore walaal aad baan idin salaamay xayaaki illah soo dhawo walaalo halkaas ku sugan tahay magacna ka horreysii walaalo siin baa la yiraahdaa waxaan ku sugan Hargeysa haye walaal waxaan doonayaa su'aal inaan weydiiyo sheekha haye walaal wiil baan in badan wada sheekaysanayay haye wiilkii walaal lacag buu ii soo diri jiray haye lacagtii walaal waan kala hadlo waxaan ku wiri walaal dee qoraalka ilaahay baa haye lacagtaada iska hayso waxba ilaahay baa inoo sugan caframas amba suun bay noqonay haa walaal dee kole lacagtii walaal iga mudayna wuu ii soo diri jiray waayahay deena walaal lacagtii inankii maalan guursano waalidkii baa inan kala siiyey inan kala lagu siiyey haa waayahay walaal sheekha waxaan weydiinaya lacagtaas ma igu xaaraan baayo waa dayun igu leeyahay waan gudaa intii kii hore aad ka qaaday ها لعبتها هوران كقاطة واو aad baa umahadsantay walaal aad baa umahadsantay ولا aad baa umahadsantay halo waxaad moodaa su-aalaha ku saabsan sheekh maxamed guurka iyo sheekada iyo jacaylka iyo meherxadka iyo uurka soo baxaya inay aad u badan yihiin ama sheekada inta yar soconaysa markaa السلام عليكم calaykum asalaam walaal في عنتها si fiican walaal soo dhawow yaa walaalo waan dhowahay haye waan dhowahay waaye dee shaashadaad iska dhegeysanaysaa sidaad marka anigii maqli maysid ma ogtahay waa tahay sheekh maxamed intaan khadka telefoonka u gelin markaa su-aasha arrimaha qoyska sidii loo dhisayo bishakl si guud bal daawadayaasha barnaamijka ku xidhan baad insha allah siin doontaa waxaa waxyaabahan keenaya mashaakilkan dhowrka su-aalood badan naga soo noqdeen waxaa ka mid a laga yaabaa in sidaa sheegtay dadka odayaasha ama mas-uuliyiinta inaabay danba ka lahayn ba laga yaaba lacagood qofkii ruux dumara kasoo doontay wanaagsan ay siiyaan laakiin tartiibaad fara badan oo gaar ahaan dhinaca dumarka ka yimaada ayaa sheekh maxamed dhalinyartan ka baqanayaan amaba loogu dhici layay guurkii mashaakilkana waa kasoo dhacay maxaad kula talin lahayd gaar ahaan bal hooyooyinka hablaha dadka ehelka iyo caailada u ah hablaha la bixinayo si guurka uu fududaado oo tartiibaadkan meherka ku xidhan arooska ku xidhan isbarashooyinka waxyaaba baryahan dambe soo kordhay waxyaabahaasoo dhan bismi illah horta su-aasha sacdiya inu ka jawaabi lahayn intaa boosaas inaga soo weydiisay waktiga salaatuleylka waktiga salaatuleylku waxa weeye wuxuu ka bilaabmayaa salaada cishaai marka la tukadee la sunnaysto wixii ka dambeeya ilaa intaanu dilaacin waagu waa waktigaa dheer markaa qofkii isla habeenkii qeybta dambe hore u kici maysid wuxuu tukanayaa cishaayiga kadib waxaad tukan kartaa 3 ragcadood 5 ragcadood ilaa 11 ragcadood qofkii isla salaada subax ka hor baad kacaysaana inuu dib dhigta ayaa wanaagsan ilaahay baa wuxuu yidhi wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan laka casaa an yabcathaka rabuka maqaaman maxmuuda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoo ilaahay ula hadlaya wuxuu yidhi habeenkii cibaadada u kac oo qur-aanka ku cibaadayso marka salaada qeybta dambe habeenkiibaa fadli badan
maadaamuu ilaahay soo degayo addoommaha uu leeyahay keebaa dembi dhaafi weydiisanaya keebaa i baryaya oo aan aqbalaa marka wakhtigiisu waa kaa weeye labada dhanba waad ka tukan kartaa laakiin dhinacaad kolba kalsoonida ka qabtaad u kici su-aashaa Saynab ee ahayd ninkii aanu sheekaysanaynay baan ka qaadanayay adduun ama lacag ma xalaal baa mise waa xaraam isagii baa dib u weydiina hadduu ku idhaahdo deyn bay haydna isaga celi hadduu ku idhaahdo hadiyad bay haydna xalaal bay kuu tahay laakiinse waxay u badan tahay inay hadiyad ahayd la xidhiidha soo jiidasho marka waxaa hunaaka adab fi zawaaj marka la guursanayo aadaab baa jirta aadaabtaasina waa aadaab wanaagsan oo islaamiya aadaabta waxaa laga doonayaa labada qof ee isguursanaya iyo waalidka aabba iyo hooyaba iyo ehelka ku xeeran iyo asxaabta intaba aadaabta waxay ku soo ururaysaa wax kasta oo sharcigeenu inaga xaaraantinimeeyey waa laga ilaalinayaa wax kasta oo sharcigu kaa ilaaliyey oo haddii ay tahay eegmadii ka baxsanayd xadka sheekaysigii xadka ka baxsanaa isla gooni noqoshadii isdhexgalkii sidoo kale dee tan imika aada sheegayso ah inuu qofkii isku dayo qalbigiisa qofkii inuu adduunyo un kusoo qabto adduunyaduna waxba ma soo jiida haddaan iimaan meeshii jirin iyana way ka fakanuun isna wuu ka murugoonuun marka akhlaaqiyaadka wanaagsan in la ilaaliyo aada bay muhiim u tahay arrinta da-yartu ay ka cabanaysa kharashka ah qaarkoodna waxaa jiray ka cabanayaan qaarna way ka badbadinayaan oo qaar la barayo laleeyahay sukii guurina baa firdhanaya marka ka badbadiskaasina in laga daayo weye kharashkana in laga daayo weye yaradka gabaatiga iyo waxaan kale xaabada ah ee lagu dhex bado oo imika marba waxbaa sii biiraya fujaanadii baa dhiidhii kale lagu darayo imika hodheel la marayo oo lagu odhanayaa intii uu qofku ku aroostayba in la eg baa isbarashadii iyo fujaankii iyo kiradii iyo gawaadhidii iyo waxaasoo kale marka waxaasoo dhan waxa ka roon kaalo in laga dhiga kaalo berigii hore soomaalidu waxay samayn jireen waxa la yidhaha kaalo oo ahayd qoyska guursada in adduun la siiyo marka labada dhinacba waxay ku tari karayaan ha ku tareen qoyskuna wixii uu maamulanaya ha maamusho laakiin kharashkaa badan baa sabab u sii ahay kharashka ha laga daayo labada dhanba oo tusaale wanaagsan aynu ku noqono kolley dee aadaabtu way badan tahay labada qof markay isguursanayaan ama waa inay cajaladaha dhegaystaan ama waa inay kutubta guurka ka hadasha akhristaan saasay ku baran karayaan aadaabta waajibka iyo aadaabta sunnaha aba inaguna lama mid yihin daayarta waxaynu u sheegaynaa iminka dee adduunyadan agabkan wax laysugu baahiyo atawaasul alijtimaaci ama bulshada ku wada xidhiidhun bay eeganayaan siday gaalada u wada dhaqmayaan shisheeyaha waxaasay eeganayaan waxaa ha eeganina ummad islaama baynu inagu oo ilaahay ka xishoonaya subxaana wa tacaala oo dhaqan leh dhaqankaasood raacdaabaad ku barakoobaysa haddii guurkii bilaa baraka noqdana oo ama kii kaniisadda aad ku dayata ama kii faasiqa ahaa bilaa barakuu noqonaya meesha baraka la-aani soo gashana ubadna ma jiro aqalla dhismi maayo labadoodana way kala cararayaan marka diinta islaamka oo la ilaaliyo oo lagu toosnaado hadyigii nebiga iyo dhaqankii rasuulka sala allahu calayhi wasalam akhlaaqiyaadka wanaagsana waa kuwaasi aynu ku dadaalo intaa qoleen soo sheegayba wallahu aclam aad baa umahadsan tahay khadka telefoonka ayaan sheek ku noqon doonaa insha allah halo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu halo wacalaykum asalaam walaalo wacalaykum asalaam mar labaad ha alo walaal si fiican baan ku maqlaya ha waxa sheekha weydiinaya ha gabadha haddii ninkan kuwa saaran haris markii wala istiraasooda ka yidhaaho halka meel isku haysta iyo sidan mar walba de waa lagu fuulaayo waa kula yidhaaha ka waran maxaa shareecadu maxay ka qabta aad baa umahadsan tahay aad baa umahadsan tahay tala guud ba waxaa laga yaaba inay aad u doonayso sheekh maxamed ku saabsan ninkii inaan mushaki ugu noqon amar xaasil waxaa laga cawsha inay ka muuqato su-aasheedii asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmat walaala soo dhow waa dhowahay magaca ku bilow iyo halkaad nagala soo leso anima leeyahay hargeysan kaala soo hadlaya haye waxaan ku sheekha weydiinaya ha waxaa meherad baan haystaa haye marka waxaan laygu buufiyey wax caano casoo coca-cola ku qoran tahay haye
markaa qaar baa yidhi coca-cola waxaa ku leeyahan shirkadii guuri ilaa maxaan ilaama kaloo ku qoran haye markaa maxay diinta islaamku ka qabtaa arrintaa marka miyay caddahay oo meeshay waa la ogyahay waa hubaal miya mise anagu waa markaan aragna waxba kuma arkaya laakiin dhinaca kale marka loo rogay koranaya saasay hayataasaa looga jeeda aad baa umahadsantahay aad baa umahadsantahay walaal waxa weeye eedaanka waa salaada waa loo eedaamaya anagu salaada uma eedaana markaan tukanayno una iska galna hadda dumarka nahay markaa dembi miyay nagu tahay de markaan salaada tukanayno allahu akbar maa ku suganaa mise waa waajib inaan eedaan ayaa qiimsanay eedaan miyaa qiim aad baa umahadsantahay walaal daawadaha xiga halo asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam walaal soo dhawow walaal adigii sheekha umar bisaame maxamedo haye waan kaa qaadin si fiican inta badan salaada cishaayimaa walaal iga tagtay inta badan haye igama tagtee laakiin waan ka raaga goor dambe ilaa tobanadaan tukadaa haye sax ma tahay mise maaha sharcan sax ma tahay maadaama imika sheekha dhegaysanayo yidhi salaada wixii cishaayi ka dambeeya salaad liil bay noqotaa miyaan saxaysaa walaal aad baa umahadsan tahay aad baa umahadsan tahay walaal sheekh maxamed bismillaah waan soo koobaynaa su-aalihii ugu dambeeyen maraynaa bismillaah shakiga uu xaaskiisa ka shakiyaya ninku iyada oo cafiifadahoo dhowrsoon waa ceeb waa tuhmaad qof beriya markaa qofku waa inuu aada iyo aada uga feejignaadaa waa dhib uu dhibayo walaalkii kalsoonidana way dhaawacaysa sidoo kale iyaduna inay isdhigto meel lagu tuhmi karo ama ragga jaaniba la socoto ama wakti xun socoto ama dad xun raacdo iyaduna waa wax lagu tuhmi karo waa qalad labada qof waxa ay ku wada socdaan waxyaabaa ugu muhiimsan waxaa ka mid a kalsoonida inuu midibo ka kale ku kalsoon yahay oo isu laab furan mar haddii se la kala shakiyo waxaa dhacaya in la kala urursado saa daraaddeed aadaabta qoyska lagu wada soconaya waxa weeye inuu isaguna waxaan caddayn aanu keenin iyaduna wixii lagu tuhmaya iska daysa iyo isaguba su-aasha faadumo ee ah coca-cola waxaynu ku diidna ma garanayno iyo qadiyadda ah dib baa loo akhriyayaan shayga horaa loo akhriyaa dib looma akhriyo iska dacaayadunbay isaga eg tahay adaanka ay tidhi markaa dumarka haddaanunay ma adaano way adaamayaan dumarku kor uma qaylinayaan laakiin si gaaban oo ay isbaqashiinayaan bay u adaamayaan waana aqiimayaan sunnahana way tukanayaan kadib bay faralku sii xidhanayaan ay faralka tukanayaan iyagoo gaarna u tukan kara iskuna xidhanaya hadday dhowr qof ku wada joogaan way isku xidhan karaanoo midkood baa tukinaysa marka salaada iyo axkaamteeda waa inaad barataan cajaladaha ka dhagaysataan casharada ku qaadataan salaad qurux badan oo qiimo leh ilaahay agtiisa waa in la tukadaayo rabbi raalli ka yahay safka dumarku imaamkoodu xagga hore uma baxaya sida ragga eh waxay istaagaysaa laynka u horeeya dhexdiisunbay istaagaysaa waxyaabaha ay kaga duwan yihiin ragga ayay ka mid tahay markay tukanayaan waktiga cishaa'igu ilaa 10 habeenimo waa joogaa waktiga waktiyaarka ee fiicani markaa haddii aanad ka tegaynin ama aanad salaadii ilaaweynin waad yala dib dhigan kartaa intaad howlaha iska dhammaynayso kol haddii aanad jamac ku tukanaynin gurigaaga aad ku tukanayso dabcan gurigana waa loo fasaxay dumarku inay ku tukadaan marka waxaynu uga jeednaa un goortaad cishaa'iga iyo sunnihiisa tukata kadib unbuu salaatuleylku kasii dambaynaya marka haddaad 10 habeenimo tukatay cishaa'igii dee salaatuleylkiina wuu kusii xigaa un wallahu aclam waa tahay laba daawade ee ugu dambeeyay barnaamijka toddobaadkan ayaan u yeeri doonaa insha allah halo asalaamu calaykum halo walaal may maqlaysaa waa tahay daawadaha ayaan u gudbaya asalaamu calaykum ilaa daqiiqadihii ugu dambeeyay barnaamijkan ku jirno halo walaal waan ku maqlayaa soo dhawow magaca ku bilow halkaad nagala soo hadlayso raacay iyo su-aasha walaal waxaa magacaygu waa nasriin waxaan ka soo hadlayaa xaafadda jigjiga yar hargeysa haye waxaan weydiin lahaa su-aal haye su-aashaas oo ah ninkaygu hadduu diinta caayo miyaan ka furanahay mise uu qof kala caayayo oona anigay caayaynin shareecad maxay ka qabtaa aad baa umahadsan tahay hadduu qofku diinta caayo xaasna lehe ma ka furmaya sheekh maxamed daawadaha ugu dambeeya halo halo السلام عليكم ولا لا صدو هلو السلام عليكم
عليكم السلام. والله waxaad tahay daawadii ugu dambeeyay ilbiraqsiyo kooban su'aashada. وأنا أقول الشيخ أنا أطلع دجال هريسة جرا قدينا موي ما عيب الإفراح زين عندي الشيخ وش عمويدين يا وحن عبور روح الرقم ما هي عيب المدو يسوي يوم حنا حرام بمسوا حلال aad baa maasantay aad baa maasantay xabadaas aan soo gabagabayn doonaa sheekh maxamed waqtigeena haya qofku hadduu diinta caayo waa gaal hadduu gaaloobana ooridii way ka furantay xalkuna waxa weeye maxkamadda ha tagaan ama culimada ha u tagaan si loo xaliyo labada qof arrintooda haddii ay doonayaan inay sii wada socdaan hadday doonayaan saa ku kala tagaan dee warqadeeda waa inuu siiyo waayo wuxuu ku qabay gabadha diin bahayd xarigii diintana waa kan jaray marka arrintaasi waa arrin aad iyo aad u foolxun ilaahayna caay male subxaanahu wa tacaala ammaan buu leeyahay insaanka ilaahay caayaya ayaa eedaysanoo cay leh markaa guurkii wixii la isku qabee diin ahaa mar hadduu jaray way furmaysaa xal ha la raadiyo su-aasha macnaha ama iyada ha caayaya ama qof kale ha caayaya diintu waa isku midun su-aashan ifraaxay u dambeysay ahayd ciyaalka waxyaabaha lagu xidhxidho hadday tahay qoorta iyo hadday gacmaha tahay iyo hadday shaydaan lagaga ereeye iyo maya wax lagu xidhayaa ma jiro dhaqamada noocaasi ee aaminsanaanta iyo caqiidadaasi ay la socotaa yaqiintii qofka iyo caqiidadiisii fiicnayd bay luminaysaa waxay caruurta ugu akhriyaya hadday roonaadaana la baraya ducooyinka ka soo arooray nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo qulacuudiyaha iyo qur'aanka iyo aayad kursida acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaq bismi illaahi aladii laa yaduru maca smihi shayun fi lardi walaa fi samaa wahuwa samiicu alcaliim adkaartaasaa la baraya kuwaasaa ilaahay uu ku ilaalinayaayo xirsi xidh u noqonaya insha allah allahu aclam aad baad mahadsantahay sheekh maxamed barnaamijkii diintii nolosha toddobaadkan halkaas inoo joogi doona insha allah waxaan maanta qay dhammaan howlwadanada farsamada baahinta gudaha iyo dabadaba ee telefishinka qaranka ee barnaamijkan waxaa garbaxay ugu horeeyo injineer xasan maxamed jaamac iyo cabdi cumar jibriil iyo idriis maxamed iyo axmed qorshe iyo ugaas iyo rooble cismaan daahir caabi iyo sidiiq maxamed dhammaantood aad baan ugu mahadnaqaya waxa kaloo mahadnaqaya sheekha barnaamijka waqtigaasi barnaamijka xilligaasi daawadayaasha telefishinka siiyey siduu su-aalaha dhinaca diinta uga jawaabo waa sheekh maxamed sheekh cumar dirir barnaamijka waxaa soo saaray idinla soo socodsiinaya halkan anigu waa maxamed axmed cabdilaahi shabeel tan intan barnaamijka soo socda isugu iman doonana dhammaantayo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu